السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سود وهذا وحلقة ديني لبعض برنامج كني يودي قيبت هراء وحان ينكسو قد بيي إن بدن أو كميد سؤال هني أنا جو كعذر دارني أنا نادي دين كديري أنت بدنا أنك هذا في ساحة تركيا سيدا لغو هلا إيو نولش دالكا تركيا قديه سيئ معيشة ديس qaybtan waxa aan jecelahay si kooban in aan uga hadlo waxbarashada iyo caafimaadka su'aalihii ku saabsanaan aan ka jawaabo su'aalaha hadii aan iska bilowdo insha Allah walaalkan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum walaal magacaygu waa Zakariya waxaan joogaa Hargeysa Somaliland waxaan ku weydiin lahaa kow dhakhaatiirta Turkiga ka warantayadooda ma u iman karaa dhakhtar labo ولا الفيسها وحبرشوا dadka soo saara aad bay qaali uga dhigeen sideen safaarada u abaari karaa saddex familigaygu ma u soo guuri karaan mahadsanid walaal Zakariye su'aashaada koobaad ee ku saabsan tayada waxbarasho tayada caafimaadka ama dhakhaatiirta dalka Turkiga dhabahan waxa faahfaahiyay niman howlwadeena ka bahda caafimaadkana ku jira dhakhaatiirta Turkigu waxay kamid yihiin dhakhaatiirta ugu wanaagsan in badan oo kamid ah dalalka Scandinavianka iyo guud ahaan Yurubba waa looga yimaadaa oo halkan ayaa la isku daweeyaa dad badan oo meelo kale oo wastiga ka yimaada sida Mareykan iyo Canada iyo Australia iyo halkan uga yimaadana way jiraan waxa lagu soo xushaa inta badan inay qiimuhu uu ka jaban yahay dhulka reer galbeedka tayaduna aanay ka hooseyn oo tayadu ay fiican tahay ayaa inta badan lagu soo xushaa marka dhakhaatiirta Turkiga tayadoodu ma xuma muuqaalka aan kaga hadlay caafimaadkana insha Allah hadii aad daawatid xog badan baad ka helaysaa su'aasha labaad oo aad weydiisay fiisaha waxbarasho dadka soo saara aad bay qaali uga dhigaan waa arrin jirta weeye dhinac marka laga eego processka loo maro fiisaha waxbarasho ardayga iska bixinaya isagu kamaniya hadda ku shaqeeya inta badan dadku qof mar hadii uu dalkii joogo jaamacadna uu u baahan yahay xoogaa caqabad badan buu la kulmaa kamaniyaduna qiimo badan bay saaraan waa run waxaan isku dayay inaan ogaado warqadda ardayga lagu aqbalo ee jaamacaduhu ay soo saaraan bal waxa lagu soo saaro jaamacadaha in badan oo kamidi bilaash bay ku bixiyaan warqadaas oo qiimaheedu aad buu yar yahay laakiin jaamacadaha qaybtood baa waxa ay ku xiraan ardaygu in uu deposit lacag ah ama uu bixiyo lacag hal semester ah inuu bixiyo qaybtood $1,000 bay gaarsiiyaan inuu bixiyo $1,000 in laga dhigo dabadna loo aqoonsado arday jaamacadda ka tirsan sidana warqadda lagu siiyo fiisaha caadiga ah ee Turkigu waa $60 laakiin maadaama shirkadahaasi ama kambaniyadaasi ay shaqeynayaan oo wax fududeynayaan iyaga laftoodu waxaad moodaa inay fee iyo wax u baahan yihiin ama wax yar oo kharash ay ku shaqeeyaan kharashkan inay yar badiyeen baad moodaa inay u naxariistaan baan u soo jeedin lahaa bulshadooda oo aanay lacagta aad ugu badin ardayda family ma soo guri karaa ha walaal wax dhibata ma laha hadii aad isleedihiin dantiinu way ku jirtaa inta badan waxaan idhaahdaa dalkaaga hooyo wax ku dhaamaama jiraan markasta taladaydu waa dalkaaga hooyo wax ku dhaamaama jiraan laakiin hadiiba ay ka go'an tahay ha Turkiga wax dhibaatii kama jiraan waad soo guri kartaa waayahay su'aasha ku xigta assalaamu calaykum magacaygu waa Abdullah from UK walaal caafimaadka Turkiga maxaa free ah calashaan waxa jira dad xanuunsanaya oo wadankiisa siyaabo kala duwan ugu xanuunsan ama ugu jiran yihiin waxa hadiya goor ay ka walwalaan kharashka dhakhtarka marka waxaan jeclaan lahaa in aad u cadaysid bal waxa wixii hay'ado caawinaya hadii ay jiraan si official ah su'aashayda labaadna akhi Turki ma igula talin lahayd inaan caruur ula soo haajiro ma ka helaysaa cilmi diiniya
iyo kan maadiga ah qiimihiisuna macquul yahay tayaduna sarreyso su'aal dheer ama su'aalo badan oo isku guda jira su'aasha qaybteeda hore maxaa free ah caafimaadka dalka Turkiga wax free ah ma jiraan caafimaadka dalka Turkiga wax free ahi ma jiraan laakiin waxa laga yaabaa inaad maqashay barnaamij waxa jira qaxootiga ay dawladda Turkiga qaadato ama UN ay qaadato waxa la siin jiray health insurance ayaa la siin jiray qofka uu si guud u isugu daweyn karo si free ah family laga jaray waan arkay oo ii sheegay in laga jaray family badan oo qaataana way jiraan oo barnaamijka ku jira dad xanuuno $60,000 lagu daweyn lahaa oo kansarku kamid yahay ilaahay inaga ilaaliye ayaa jira oo iyadoo aan waxba laga qaadin lagu daweeyay marka hadii aad weydiinaysid oo freega aad maqashay uu ka yahay kaasi waa health insurance UN ay bixiso dadka qaxootiga ku ah dalka Turkiga ayaana la siiyaa inta badan magaalooyinka waaweyn Ankara iyo Istanbul iyo laga helo laakiin gobolada fog ayaa laga helaa ma ula soo haajiri lahayd Turkiga maya Turkiga horta hijrada inaan isla fahanaa fiican hijradu sharciyan waxa weeye qofku dhul aanu diintiisii iyo cibaadaadkiisii iyo si caadi ah ugu practice karayn inuu kala soo cararo ama diintiisu khatar galayso inuu kala soo cararo oo meel uu safe ku yahay uu yimaado hijrataas la yiraahdaa waxaynu soo marnay culimada qaybtood inay ku fasiraan waxa weeye al-intiqal min balad ash-shirki wal kufri ila balad al-islam marka hijrada Turki dhaqanka yaala iyo dhaqanka UK yaala wax badan oo farqiyo badan anu kama arkayo maybe carruurta marka aad u sheegtay tidaahdid waxaanu ka nimi gaaladii Turkiga oo muslimin u nimi ay arkaan inay dadkiiba isu eegyihiin oo aan wax badan kala duwaneyn inay ku yiraahdaan hijradana maxay tahay marka hadii aad carruurta meel diin iyo akhlaaq islaam iyo dhaqan islaam iyo aad la doonaysid waxaan ku oran lahaa dalkii dadkoodii iyo dalkii dhexgee su'aasha xigta waxay ku saabsan tahay waxbarashada السلام عليكم magacaygu waa Faadumo joogta USA waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado iskoolaadka ku baxa luqadda Ingiriiska iyo qiimahooda in la heli karo su'aasha su'aalka agdhow oo kale ayaa jirtay oo ah السلام عليكم magacaygu waa Salwa Umar oo joogta Muqdisho waxaan rabaa inaan u soo guuro Turki waxaad iga soo warbixisaa iskuulka Hamadiya oo Soomaalidu leedahay intee uu ka kooban yahay carruur badan baan wataa thanks labada hablood waxaan jecelahay su'aasha inaan uga jawaabo oo ah iskuulada Ingiriiska ku baxa ama international schools la yiraahdo ku yaala dalkan inta aan ogahay horta iskuulo badan baa ku yaala in badan oo kamidana carabta iska leh qaybtood qiimaha la yiraahdo qiimo aynu goyn karno ma aha waayo iskuul sanadkii ka yar qiimihiisu uu ka yar yahay $2,000 ma arag iskuulada internationalka ah iskuulkan Soomaalida Hamadiya la yiraahdo waxaan u malaynayaa inaad xayisiiskiisa ku aragteen page-ka sheekheena Sheekh Maxamed Idris iyo page kale oo ay Soomaalidu leedahay inaad ku aragteen waxaan la xiriiray maamulkooda si ay bal information-ka iigu soo diraan qiimihii waxa ii soo kala qorqoreen marka qiimuhu inta uu kala yahay insha Allah shaashadan sawirku ila soo wadaagay aan insha Allah idinku soo saari doona laakiin guud ahaan $2,500 ayaa ugu jaban ama ugu yar waxaana ugu qaalisan $4,500 iyadoo discount ay jiraan waa qiimaha marka u dhaxeeya inta $2,500 ilaa $4,500 inta u dhaxaysa ayuu iskuulkaas qiimihiisu yahay KG buu leeyahay primary buu leeyahay middle school buu leeyahay high school buu leeyahay hoose dhexe iyo sare iyo xadaano intaba wuu leeyahay aan ka gudbo su'aasha ku xigta walaalkan aan magaciisa sheegin wuxuu yiri arday Turki jooga oo jaamacad ka dhigta exchange student jaamacad kale oo Yurub ah ma aadi karaa ama muddo
isgaaban ma fahmin isgaabanta yani muddo gaaban inuu gula jeedaan filayaa waxaa jira heshiis dowladaha Yurub intooda badan ay ku jiraan oo program la yiraahdo Erasmus programkaasi mostly Europe ka jira waliba 2014kii wixii ka dambeeyay waxaa la dhaqaajiyay Erasmus Plus dowladaha Turkiguna jaamacadahoodu waxay isweydaarsadaan ardayda Turkigu xubin buu ka yahay in badan oo kamid ah jaamacadaha public ah ee dowladdu ay leedahay Turkiga systemka way ku jiraan shuruudaha ku xiran qofku inuu luqadda Ingiriiska aad u yaqaan oo gradekiisu inuu sarreeyo waxyaabo badan baa ku xiran hadii ay shuruudaha ay jaamacadu ku dhigtay buuxisid maybe faculty-ga aad dhiganaysid jaamacadaha uu connection kala leeyahay waa laga yaabaa in lagu bedelo maybe in faculty-ga aanu lahayn ba jaamacado badan uu ku xiran yahay waa suuragal inuu dhowr dal option lagu siiyo Jarmalka iyo Ingiriiska dhowr dal lagu siiyo inkastoo Ingiriisku imka ka baxay dhowr dal in lagu siiyana waa suuragal marka Turkiga way ka jirtaa arintaas su'aasha xigta assalaamu calaykum walaal waxaan joogaa Hargeysa waxbarashada scholarship-ka sida lagu helo ama guud ahaan waxbarashada jaamacadaha scholarship-ka sida lagu helo iyada oo faahfaahsan waxa aan kaga hadlay laba video oo kala dambeeyay marka hore warbixin guud ayaan jaamacadaha iyo scholarship-ka iyo da'da la isku qaato iyo waxa soo dhan kaga hadlay waa muuqaalkan idin muuqanaya marka xigta waxaan yana ka hadlay oo aan aad u faahfaahiyay barnaamijka ku saabsan jaamacadaha guud ahaan ama scholarship-ka aad sida tooska ugu soo dalban kartid step by step isna halkan aad ka arkaysaa labada walaal insha Allah bal kala soco waxaan idin xasuusinayaa waxaan ku jirnaa bishii 12 ama December January 15keeda waxa furmi doona scholarship-ki ilaa February 20keedan qiyaasaya inuu xidhmi doono isku day inaad usii diyaar garowdid muuqaalka si fiican aad u fahantid kadibna aad dokumentiyada laga baahan yahay si diyaarsatid oo sida ku xiriirsatid scholarship-kaaga waayahay su'aasha xigta magacaygu waa Maxamed Cabdilcaziz waxaan joogaa Hargeysa waxaan doonayaa jaamacad Turkiga jaamacadaha Turkiga marka qofka ardayga bishii kharash intee la eg baa ku baxaya oo cidina aanay u deganayn yani ardayga kharashka ku baxaya waxa aan la xiriiray arday iyagu halkan deganaa 6 sanadood joogay xog badanna ka haya waxa ay sheegeen ardayga magaalooyinka waaweyn Ankara iyo Istanbul iyo maahay magaalooyinka kale caadiga ah gobolada kale ardayga jooga hadii uu ardaygaasi wixii sakarsanayo arday kale la degan yahay in ay $150 ku filan tahay si fiican inay ugu filan tahay ay sheegeen marka waa hadii aad ka badan helaysidna waa alxamdulillah oo ilaa 200 helaysidna waa alxamdulillah waayahay su'aasha xigta Naasir Maxamed Yuusuf oo jooga Hargeysa waxa uu yiri aniga walaal waxaan ku weydiin lahaa waxa maalmahan batay dad kale waxaan soo saarnaa visa education-ka lacagta badanna ka qaadanaya marka dadkaasi miyaanay la mid ahayn dilaalintii aad soo sheegtay qashay xagga caafimaadka gashay xagga caafimaadka way la mid yihiin hadii dhinac laga eego oo qofka bulshada saaraya qiimo yani ziyaada waxaad moodaa waa qof de waxyaalo badan u geysanaya dhinacna lama mid aha oo waa kambaniyo badan oo hadda tartan ku jira hadii qolo wax ku sheegto waxaad chance u haysataa qolada kale ka jaban inaad eegtid waxaad kale oo chance u haysataa sida qofka caafimaadku u dhiban yahay uma dhibanide inaad cid kale oo ardayda halkan joogta ama familiyada halkan ku jooga aad tiraad ii soo ogaada sida aan ku heli karo marka wali option badan ayaad haysataa wax badan way u fududeeyaan arday aan safaarad tagin meel kale soo marin ayaa $1,600 ama $1,700 waxba loogu soo saaraya tigirka kaliya inuu iska soo bixinaya hadhowna iyagu ay ka mas'uul yihiin oo intuu meesha joogo hadii doonaan ay wax badan la qabanayaan marka waxaan isleeyahay wax badan hawl badan bay qabanayaan laakiin qiimaha inay dadka la saayiraan oo ka dhimaan oo ay u fududeeyaan aad bay u fiicnayd waana kula talinayaa hadii cid kamidi
ay muuqaalkan daawanayso. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Ismaaciil, waxaan joogaa Turki. waxaad iga soo warbixisaa jaamacadaha ugu wanaagsan dhanka engineerinka kuwa publica iyo kharashkooda sanadkii. horta jaamacadaha ugu wanaagsan waxaan isku dayay ardayda inaan halkan uga faa'iideeyo sanadkan 2020ka waxaa TRT ay soo daabacday oo ah website-ka rasmiga ah ee dawladda afkeeda ku hadla. TRT waxa la isku yiraahdaa warbaahinta dawladda. waxa ay soo daabacday jaamacadaha dalka Turkiga iyo sida ay u kala sareeyaan ama ay u kala fiican yihiin. 7 jaamacadood ee ugu heer sarreeya dalka Turkiga ayaan idin la wadaagayaa. jaamacadda lambar 1 ka ah Turkiga waxa la yiraahdaa Hacettepe University waa jaamacadaas. jaamacadda labaad waa jaamacadda la yiraahdo Orta Doğu Teknik University waa jaamacadda Middle East Technical University wax noocaas ay noqonaysaa. jaamacadda saddexaad waa Istanbul Technic University. jaamacadda afraad waa Istanbul University. jaamacadda shanaad waa Koç University. jaamacadda lixaadna waa Gazi University. jaamacadda toddobaadna waa Ankara University. 7 jaamacadood jaamacadda shanaad oo Koç University ah unbaa waxay tahay private. 6 kale waa jaamacada publica. dalka jaamacadihiisa oo 165 jaamacadood ka badanna iyaga 7 jaamacadood ayaa ugu sareeya. marka hadii aad jaamacadaha ugu fiican kuliyad kasta ha ahaato, engineering ha ahaato, kuliyadaha kale ha ahaato, jaamacadaha ugu fiican waa 7 jaamacadood hadii aad insha Allah aad si gaar ah u daneyn kartid. qiimaha jaamacadaha waxa aan eegay jaamacadaha publica ahi aad bay u jaban yihiin. ardayga tusaale ahaan baajka ah bachelorka doonaya waxa laga yaabaa sanadkii oo dhan jaamacadu inay ka qaado hadii jaamacad dawladeed ay tahay $100 ilaa $200. ardayga masterka ah waxa laga yaabaa $400 ilaa $1500 inay gaarsiiso. ardayga PhD dana $500 ilaa $2000 ay u dhaxaysaa. jaamacadaha dawladdu waa qiimaha. kuwan private-ka qiimahooduba wuxuu ka bilowdaa $200 ayuu ka bilowdaa. jaamacadaha qaybtood $30,000 buu gaadhaa sanadkii oo jaamacada aad qaali u ah heerkooduna aad u sareeyo ayaa jira. waayahay su'aasha xigta. assalaamu calaykum, magacaygu waa injineer Cabdiraxmaan jooga Turki gaar ahaan Konya. weydiintaydu waxa ay tahay YouTube-ka iyo mustaqbalka fog iyo kan dhowba hamiga aad ka leedahay muxuu yahay? mase rajaynaysaa inaad ka mid noqotid YouTube-leyda ugu caansan Soomaalida? Cabdiraxmaanow hore iyo dambeba waan u sheegayaa YouTube-ku aniga ima aha xirfad iyo shaqo ima aha. waxaan ugu talagalay bulshadayda Soomaaliyeed wixii aan u soo gudbin karo inaan halkan ugu soo gudbiyo, ama wacyigelin ha noqoto ama waana ha noqoto, inaan halkan ugu soo gudbiyo ayaan ugu talagalay. intaana insha Allah inta aan wadi karo waan wadayaa. hadii aan doonayo channelkan inuu xoog u weynaado waxyaabaha channelada aadka u kaca YouTube-ka wax fiican ma aha. channel ka hadla wax macna leh oo dadka u faa'iideynayna maaha. ma rabo markaa inaan daawasho wax ku doono iyo like iyo share inaan wax ku doono ma doonayo. waxaan doonayaa bulshada inta aan awoodayna wax gaarsiiyo. intaas hadafkaygu uu yahay. hadafka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka tago adduunkan aniga oo wax wanaagsan oo ay dadku sii daawadaan oo khayr iyo duco aan ka helo inaan kaga tago ma doonayaa. waayahay su'aasha su'aal la mid ah Xasan Xuseen oo jooga Nairobi ay weydiinayay maxaa kugu kalifay inaad bilowdid? just waxay u kaliftay inaan bulshadayda aan isiri talent inaad wax u sheegi kartid baad leedahay bulshadana aan la wadaago. waayahay halka waxaanu insha Allah ku soo gabagabeynaynaa su'aalaha qaybtii dambe oo aan kaga hadlaynay caafimaadka iyo waxbarashada intooda badnayd. su'aalo fara badan oo ay walaaluhu soo weydiinayeen ilaa iminka oo muuqaalka marka aan duubayay ayaan arkayay su'aalo soo dhacaya kama wada gaari karo. laakiin waxa aan rajaynayaa insha Allah muuqaalkan iyo muuqaalkii ka horeeyay iyo muuqaalada kale ee channelka ku jiraba inaad ka heli doontaan xog badan oo idin faa'iideysa. wax badan insha Allah waad ka faa'iidi doontaan idina aad bal insha Allah khayrka iyo wanaaga iyo juhdiga
aad iigu soo ducayn doontaan aad baan idin wada salaamayaa waanan idinka mahadcelinayaa muuqaalkan daawashadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.